بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo buuqan xooga badan oo ka furmay maabkan Afrika oo Soomaaliya la leeyahay Itoobiya lagu daray oo kicinka xooga badan ka dhex abuuray bulshada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa in yar oo kooban inaan ka bixiyo xogaalan ka ahaa xilligii la sameeyay maabkan. Maabkan waxaa la sameeyay 2001 baa la sameeyay. waxaa lagu sameeyay gobolka Rift Valley la yiraahdo oo madaxweynihii markaas jiray Kenya ka jiray oo ahaa Danyar Arab madaxweynihii markaas jiray oo shirka Suudaan iyo kan Soomaaliya ku invite gareeyay midna wuxuu ka dhigay Eldoret midna wuxuu ka dhigay Nakuru. Suudaan Nakuru bay shirkadu ka dhacay nin janana hogaaminayay. Soomaaliyana waxaa hogaaminayay nin dhintay oo Mwangala la oran jiray kadibna waxaa loo reebay Mbagathi oo Nairobi agteeda ah oo kaligaad baa soo gabagabeeyay labada shir oo Soomaaliya iyo Suudaan baa waxaa loogu talagalay in Suudaan la gooyo oo qodob shirka gadaal ka waday oo ajnabiga ah oo cadaanka ah ay u diyaar gareeyeen in koonfurta Suudaan la gooyaan maadaama ay masiixi u badan yihiin dadkeedu. Soomaaliyana buuq dambe oo saysan uga dhalan lagu firdhiyo Itoobiya lagu dhex daro. maabkaas waxaa xilliga loo sameeyay inay fuliyaan dawladdii markaa jirtay oo hogaaminayay Meles Zenawi. qoyskan hadda xilkii laga qaaday Tigreega la yiraahdo oo hadda ay kala wareegeen nimankan oramada Abiy. dawladdaas iyo Suudaan oo is haysata Suudaan way ku gool dareysteen inay gooyaan maxay yeelay madaxweyne ku-xigeenkii Daha baa uga dagay John Garang oo yeelintii Suudaan kala gooy lahayd aan Suudaan isku hayno qabso adugu madaxweyne ku-xigeenka Juba isla tageen Bashir iyo Daha iyo John Garang waxay isku soo noqdeen meesha la yiraahdo xafladaha dhacay dadkii wala saddex gashay taasaa maabkii la goyn lahaa Suudaan kaga badbaaday kursiga waana mid sababay doonto marka dambe inuu John Garang saabsado geeridiisu diyaaradii uu ku qarxaday. tan kale too Soomaaliyana way ku guuleysteenoo warlordskii Itoobiya saameynta la lahaa ee Soomaalida ahaa ee maamul goboleedyadii iyo jabadii hubaysnaa ahaa dawlad lagu dhisay oo Itoobiya Tigreega nimankii Meles Zenawi ay riixayaan inay ka soo baxdo baa lagu sameeyay oo way u suura gashay inay ka soo baxdo dawladdii Cabdullaahi Yuusuf hogaaminayay inay ka soo baxdo meesha. haddii ay Soomaalida arrintaa ka hortimidna dee wayba soo xoojiyeen oo kuwii taangiyadoodii soo raaciyey oo ku soo daray inay salka u dhigaan ilaa haddana way suuroobi weydayoo dee Melesna meesha waa kan ka baxay oo asna meesha la khaarijiyey. nimankii uu ka soo jeeday oo Tigreega ahana waa kuwa isbedel ka dhacay oo meesha ay la wareegeen Abiy iyo qoladiisa Oromo ay meesha la wareegtay. isbedelkaas si uu u burburo oo meesha buu uga furmo baa maabkii xilligaas ku talagalkii xilliga ah ee midna guuleystay oo Soomaaliya loogu talagalay inay dawladda Itoobiya riixaysa ka soo baxdo midna John Garang loo dilay sababteeda markuu diiday in Suudaan la kala gooyo oo Daha uga dagay kursigiisa. shaxdii xilliga la sameeyay baa la soo riniyo gareeyay si kacdooma uga urman Itoobiya. maabkan marka wuxuu ku yahay qarax ku yahay Itoobiyada cusub buu qarax ku yahay iyo maamulkan cusub oo hadda jooga buu qarax lagu tuuray ku yahay. Soomaaliya kuma aha Soomaalidii loogu talagalay in Itoobiya lagu xareeyo tiimkii Soomaaliyeed oo shaqeynayana dee dhinte Maxamed Deere dhimay Cabdullaahi dhimay dalkeeda Xuseen Ciidi tag warlordskii tagay kulligood oo beesha ka baxay. waxaa marka soo haray Itoobiya Meles dhimay Tigreena xilkii wareejisay. sidaas ayaa waxaa markaa meesha ka maqan in Soomaalidu ay fahmi weydo maabkan xaggana waa ka dhammaystiran yahay oo Suudaan waa buuxdaa. haddana aad u xildhibaan waqtiga maxaad ahayd anugu ergey baan ahaa markii dambena xildhibaan baan noqday markii dambena wasiir baan ka noqday wasiir ku-xigeenka maaliyaddan ka noqday dawladdii Nuur Cadde xildhibaanna waan ahaa. marka fiiri
maabkan hadda wuxuu sheegayaa in suudaan ay dhamaystiran tahay suudaanna ma dhamaystirno koonfurta waa tii la gooyay oo caalamku aqoonsaday etoobiyana soomaaliya in etoobiya ku xareysan tahay dee etoobiya soomaaliya lagu xareeya maamkaana markii hore ku-talgelkiisu ahaa laakiin xilligii la sameeyey waxaa ku cadaynaya maabka dhinaca suudaameed ka dhamaystiran inaysan hadda suudaan dhamaystirayn oo ay kala go-an tahay oo la gooyo qolada koonfurteed waa go-an tahay hadda waa dowlad la aqoonsan yahay wey laakiin hadda inay dhamaystiraato xilliga la sameeyey maabka xilliga la sameeyey baa ahaa suudaan inay dhamaystiranto oo john garan baaba u dhintay dee ila madaxweyne ku-xigeen buu qaatay feere marka meesha waxaa ku jira in dadku fahmi waayo ma aha soomaaliya lama xadi karo dowlad kalena laguma biirin karo maaha in la fahmi waayo maaha waa maab ay ku dirirayaan taliskii hambadi ka hadhay oo iminka nool tigreega ah baa ku diriraya maabkan oo waxay rabaan maadaama aysan si fiican qolada adisabaa hadda joogtay oo si fiican cagaha ugu dhigin oo aysan kililadii kii cafarta way rishabal bay ku sameeyeen kii soomaalidana rishabal bay ku sameeyeenoo macalonref waa ku soo harayay labada kii amxaarada kii tigreeg 8-9 kilil labadii ugu xooga badnaa 4tii activeka ahayd labadii ugu xooga badnaa baa weli nafi ku jidhaayo hubkii iyo deegaankii gacanta ku haysta marka inay jabiyaan bay ugu talagaleen qodatan maabka xilligaa la sameeyey waa mid loogu talagalay inay kalsoonida kala noqdaan kilka soomaalida iyo kan cafarta iyo kiladatan kacdooma inay sameeyaan oo qodatan haddaad joogto marka kooxaa ka dambeeyey waxay dowladdu u kastay ma ahayn ma ahayn dowladda etoobiya male maabkan maba samayn kara iyada lagula dagaalamaya maabkan waa mid hadda ra-iisul wasaaraha cusub iyo tiimkan cusub ee hadda haysta adisaba ayagu ma samayn ayagaa lagula dagaalamaya lagu burburinaya oo waxaa lagu burburinayaa waxaa lagu kicinayaa kililadan kale baa iyo soomaalida laftigeeda kacdooma ka jiro oo khilaafkan hadda dowladdan dhexe lafteeda ka jira waa abaabul la riniyo garaynayo waktigiisuna ahaa 2001 looguna talagalay in conflict ka abuurmo etoobiya gudaheeda iyo soomaaliyaba